بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على دمان خيارته علماءنا markay khayr Allah siiyay wacdi ama barnaamij diini ah inoo sheegayaan waxay ku furfurtaan af Carabi marka ani wax inta ka duwan ma sheegi rabo laakiin Carabi ku furfuro ma af Soomaaliya ku furfurana hadal intiisa waa hadalka Ilaahay hanuunna waa hanuunkii Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam wax kasto diinta gadaal looga darane waxay tuseedaa in yani diinta aysan dhameystirneen markii in diinta gadaal wax looga daro waa wax reeban cid diinta wax uga gadaal uga dartane ilaa wax reeban ay sameysay way lunsan tahay cid lunsan waxaan ognahay inay cadaab ku dambeynayso horta Ilaahay naga haayo intaas kadib maalin dhaweedaan Facebook waxaan soo galiyay video oo aan dadka leeyahay Soomaaliya hadda nabad uma baahnay barwaaqo u baahantay barwaaqo hal raadiyo marka asxaab badan oo asxaabna waxay ugu dhaheen niyo ilbaxnimadan cusub ee adabada ka riixayda leedahay barwaaqo hal raadiyo waxa jirtay dhaheen dhalinyaro inta adduunyada tagaan wax barteen hadda wax waliba qaldooyay haddeed ma waxbaad qaldi rabtaa si wax u wadaa marka si koobana marka waxaan rabaa 8 albaab oo qof kasto idin kamid ah hadii uu furto oo horta qani noqonayo markastoo qof kasto idin kamid ah oo qani noqdo oo waxa uu rabo oo helo yaani dalkii oo dhan nabad iska noqonayo waayo waxa la isku dirro waa baahi laakiin hadii la dhargan yahay laba suuq isugu imaanaysa ma lahan marka 8daas irid ugu horeeyay waxa la yiraahdaa irida taqwada la yiraahdaa oo waxa u daliila Ilaahay Quraanka wuxuu ku leeyahay waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan ويرزقه من حيث لا يحتسب ومعناه wax kala maahan qofka Ilaahay ka dhowrsada Ilaahay wuxuu ka risaaqaa meel uu san fileen oo waa loo kala kicinaa habi uu noqonaa marka qofka markuu taqwo la yimaado risqiga dhana u fududaanayo waxa laga yaabaa marka inay madaxa ku jirto tiraado isleedahay waa maxay taqwo marka si yar fudud af Soomaali ku sheega taqwada wax kala maahan ee waxa waa meesha uu Ilaahay ka rabay yuusan ka tabin meel uusan ka rabin yuusan kugu arkin marka meesha Ilaahay ka rabay yuusan ka tabin meel uusan ka rabin yuusan kugu arkin markaad istiraado anu waxa ma aqaan culimada ma taga soo weydiya culimina weydiido ma baahnid waayo waxa u daliila suurta shams Ilaahay 10 jeer isku xigto daarana wuxuu ku daarna ugu dambeynta leeyahay fa alhamaha fujuraha wa taqwaha oo ah naf kasta waxaan ogeysiiyay qaladkeedii saxeeda marka adigu waad ogtaa wax qalad ah wax saxaaye meesha Ilaahay ka rabayna taagnaaw meesha iska rabina ka dhumo wadada koowaad waa taqwa marka la timaado risqiga dhana lagu fududeynaa habiya noqonayda wadada labaad waxa la yiraahdaa tawakkul tala saarashada oo waxa u daliila waman yatawakkalillah fa huwa hasbu qofka Ilaahay tala saarta rabbi yaa ku filan marka haddaad Ilaahay tala saarato oo tira hasbiyallahu wa ni'mal wakiil ee shaqada aad socoto aad hawlihi aad rabto aad doonato way ku fududaanaydaa oo tawakkalkaas Ilaahay gashatay wax walba ku fududeyna waxaan maqlaayay wadaad amaanad arkay wuxuu ka sheekeynay wuxuu wadaada wuxuu ku dhaxlumay wadamadan Sweden iyo gurigiisa ka lumay wax kala ma sameeyay salaad intuu istaago ilaa gurigan ka dhumay gurigeey hadii marka tawakkulkaaga uu gaaro wax kastana Ilaahay weydiiyo tiraawr Ilaahay waa iga wareegsantay igtoosi Ilaahay tawakkalkiisa kugu filan xasbi Allah wa ni'mal wakiil Ilaahay nagu filan waa wadada labaad ee taajirnimada iyo hantida lagu helo wadada saddexaad waxa la yiraahdaa istighfar Ilaahu yaaf maanta dhan iska tiraahdo waxaana daliil u ah faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa ila aakhir aaya oo ah yaani waqti kasta daa tira Ilaahu yaaf Ilaahay samada ka soo daadina risq uma baahna xitaa inaa shaqaysato waxaan aad u maleedina xoog iyo aqal ku keenaydo uma baahna istighfar la soo jeeso oo maanta qof daa tira ruulaal yaaf markuu ku cafi kadib xataa waxa galayso ninkan wax ugu dar dhaqaalasi marka wadada saddexaad ee lagu taajiro waa istighfaarta wadada afraad ad wada taqaanaan waxa wadada shukriga la yiraahdo thank you the way oo waxa u daliila la in shakartum la azidanakum oo Ilaahay noo ballan qaad hadaad wax yarad haysato aad tiraahdo alxamdulillah Ilaahay wuu ku badinaa marka waxa laga yaabaa inaa istiraado horta Ilaahay maxaan uga mahad celiyaa horta hore isii waa ku fududeeyaa marka Ilaahay saddex nimco ku sii nimcada koowaad ku sii waxa la yiraahdaa nimcatul wujuud nimcada joogitaanka waa joogtaa waa hadlaysaa waa taagantaa hadda joogtaa waxaana ku tusaysaa kugu filan daliil
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بري وحاجرتي إنسان كودن أو سنهين بو وحلا شيغو هذيك حتى اسك سو قاد خليغي دولدي سياد بر حاجه جرتي خليغي ادن عد حاجه جرتي كسي فوقي حتى ادن عد ما هنا waxa geysa خليغي محل يرادا سيد محمد عبد الله حسن حاجه جرتي اما waa خليغي اصحابتي حاجه جرتي marka maanta maadan joogin maanta joogta waa nimcada koowaad marka nimcada wujuuda la yiraahdaa nimcadaas aan ku sii nimcada labaad ilaahay ku sii waxa waaye nimcada lahaanshaha wax la yiraahdo indhaad leedahay aragaad leedahay maqalaad leedahay dhadhanaad leedahay caqliyaad leedahay cudaad leedahay ehelaad leedahay asxaabaad leedahay fikiraad leedahay inay nimcataana waxaad ku ogaa kartaa bal dhinacyadaada fiiri qof aan intaa haysanaa jiro nimcada saddexaad ilaahay ku siiyay nimcatul hidaayah hanuunka waaye oo maanta qoladan Amazon iyo dhulkaas ku dhalanayso Brazil hanuun iyo waxa saxaba kama ogaba oo jaanis ay ku hanuunaan ama ay maxaa la yiraahdaa ay nolol ku samaystaan ilaahay ba ma siin adu maanta hanuuna ku dhalatay dal muslimna ku dhalatay hooyo aaba meher ku dhaleen saddexdaas nimco marka waxa lagu weydiiyo kali thank you dah ilaahu waa mahadsantahay oo la in shakartum la azidannakum marka wadada afraad waa on taajir ku noqon karno waa inaad tiraahdo alxamdulillah wadada shanaad waxa la yiraahdaa silatu riham oo ah inaad qaraabada xiriiriso waxaana daliil u ah xadiiska nabiga oo uu dhahayo من أحب منكم أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه أو معناه هذا محين قلنا أو كما قال معناه هذا نوحاوه ورقفك الربو إن الدنيا ذا الله قرحية أنت يوحو الربو لسيه وتتكاغ أو قرابة هذا حريري هذا تكنولوجيا اللي مروا يايو قرابة حريري وحاول نقضي لايك شير كومنت قرابة جويس كانوا وحاول نقضي بلوك مركا حتى سد حداث استعماشه هلada dad lacag kala aad u heen xataa aad follow gareysay share gareydo la socotood waxa waay waxa ku badanayo aad fahmidaa rizqi marka rizquna waa qanaacadi hantidin waa sideed ku helaydaa ka waran marka hadii xaq Allah aan u fikirno oo aad familkaaga qaraabadaada asxaabtaada aad xiriirido ilaahay rizqa meel buu ka keenaa wadadaas marka waa wadada shanaad oo rizq oo la yiraahdo silatu rahim wadada lixaad waa wada taqaanaan waa salaada oo xadillu aayad quraanka ilaahay uu leeyahay wa'mur bi ahlika fi as-salati wastabir oo annaga rizq siinay rizq kama rabno oo maanta marka aad tukato ilaahay rizq badan uu ku siinaa waxaana kuugu filan waxa la yiri nina saaxiibkiisa xoolo yeeshay oo maqla waa u tagiyay waardiyi irdaa celiyan waxay dhahan ma galaysid wuxuu ninka saaxiibana u galaa leeyahay gudii marka uu galo wuxuu arkay saaxiibkiisa tukanayo oo soo carray gurigiisa orod ku yimid wuxuu ilaahay u cafi ninka aan shaxaadka u doonteen wax weydiisan rabin ilaahay ilaa adoo ku shaxaada adaan ku shaxaada rabbi wax idib saaxiibkiisa salaada markuu ka baxay alliirnin saaxiibkaaga ku yimid wuxuu waan ogaa ninka wax xishood badan yahay xoolaana laga daba geeyo marka maxaad garanaydaa haddaad salaada ku adkaato uqsumun billah wax ka macnaanayo ma leh waa taajireen nolosha waxa rabtaad helaydaa marka waa irida lixaad waa inaad salaada badisaa إريد التضباط وصدقة أو وحاول دليله ومن يخرج الله قد حسن يضاعفه أو يعني ويا إله الشر للجلاي وحن مغلا يقول فورك اللي هذا مقدش يجوكتو كلها يسا بقول دولار يديبه بقول كنت أنا كاعد دقيقة كورن ربي وكو أبوره كير بقول كيان لفظ بقول كاعد دقيقة أو حضنا عن كوسي لا والله أو الدنيا آخرات كهلي ذا مركب وحا شاكر وحادر تعالى النبي عليه الصلاة والسلام نيف أريو جورجي سكوكل الصلاة دي وسك عايشة نيفك ويسر دقيسي هلو تمركو عصر كيمي ورا عايشة محا النهاري مكاسي وعيتر قرب عن النهاري حوري قرب كاس بيسا عنك مخان ومعنى هذا أيتها الدون كان هنتدا آد شقيستو قريها آد بيستو قوارد آد يلتو دهبك آد قدتو درك آد قدتو وحاصلن هنتي آد عديق الله ذا ماها لكن $1 آد صدقيستو dadka aad siida kaas bisa leedahay oo asaga iyo weyn ku soo noqaa inta afka joogto aakhirana soo lagu laba jibaarayo oo marka sadaqadu waxa waaye shaygan iridaad oo maxaa la yiraahdaa toddobaad ka xigta inaad tani noqoto irida ugu dambeeyay sideedaad waxa la yiraahdaa irida cilmiga oo hortana cilmiga markaad maqasho dad waxay la aadaan computerka baro physics-ka baro علمي قرته اللي وشيء سكوا مردا كوشة ومعرفة الله وأنا دلها أخوان صدق وحاول الولاية ما عندها كمبيوتر برته وحاد برتين
معرفة خلق الله إلهي وحو أبور وحي أبورين أدبرنويسا هدي أسي إيمان له أو حبرتني علمي كستوب برنا إذا إلهه كبرا إلهه كحرا إلهي يدبرنا إذا ربي كو أبورات فهنتود برتني والله وحاد كم عرمي إذا ورهبلو يديب ورهبلو يقرقار وركليه حنون إذا دخترك حقوقو يالا waxaan waa ka maarmeeda isaga rabbiyaad mar walba u carreeda marka waa irida sideedaad ee naga xigta inaan qani noqon sideedaas irdood ilbaxnimo ay dabada ka riixayso iyaan rabnaa marka in yaani ummadii aan go'aysiino oo niraado sideedaas iridaan u baahannahay marka qof kasta uu ku dhiirado oo qof kasta hadana waxa kale oo jirto aayad quraan waxa jirta aad aan u jeclo leedahay lima taquluna ma la tafcaluuna wax kale ma aha waxaadan adiga sameyn dadka ha farin marka sideedii aniga ku dhaqmo sideedii aan sameeyaa wallahi qaniyaan ahay oo financialna qaniyaan ahay qanaaca qalbi ahaanna qaniyaan ahay adigana waad sameyn kartaa oo wax aqli u baahan ma wax aqoon u baahan ma hadaa marka kulligeen tilaabadaas wada qaadno dhaqaalihi dalkan noo kobcaan dalkii dhaqaalihiisa markuu kobco maxaa la yiraahdaa xakamuhu waa far umaanku diido qofka bini aadamka in la faro liira waxa samay liiraada nidaam darraba waayba qofka haduu dharagsan yahay maba u baahnaba in wax loo sheego anshixiya iska soo noqona qulubtiya iska dagaysa nabigana wuxuu noo sheegay wuxuu yiri diinta islaamka la isoo dir wax kale ma ahane makaarimul akhlaaq waay inaan akhlaaqda mujtamaca kor u qaado waay marka akhlaaqdeena waan dhiseynaa sideedaa shayna waan sameeynaa hanti badan aan yeelanaynaa haddaan Soomaalina markaan qani noqono والله مدحوينه iyo wasiir iyo qoladii markaan hogaaminayso waxa way maalinka xataa qodmad qabanaayo qof jaanis weeraysa mal war madaxweynaha maanta hadlaaye waayo wax naga maqan ma lahan rabbigeena lagu wada xirmay oo xataa waxa daliil kale u ah berigii hore u gumeystay haystay yaqiinta Soomaalida ee xaq diinta islaamka aad u sarreeyay oo dad xalaal xuquuqda la iska ahaa yaqiintaas awgeed ilaahay si fudud nooga qaaday gumeystay maxaa ku xigtay inaan falsafad shisheeye soo aqrinoon dimuqraadiyad iyo maxaa la yiraahdaa kaligistalis iyo riwaayada kale xaq ilaahay ma aha dhinac kale lagu wado maxaa aragnaa si reer bani Israa'iil 40 sano wareer ku jirnaa waa isla wareersannahay maxaa waay Soomaalida cibaadaadka la yiraahdo cibaadaat ash-sha'aa'iriya oo sumadaha ah soonka salaada sadaqada xajka iyo shahaadateynki aad ugu fiican tahay لكن هذا دقيقة مركو نبي نوشيغا محوري بني الإسلام على 5 إسلام لماذا شنا اللي قدول دسي معناه إذا ما إسلام لماذا شنا سال لو استاجي إسلام لماذا قدول صار إسلام لماذا مركو محاواي أنشحي وناك سنة واي قفكي أنشحي وناك سنة لها رب الله النقضة نولا شدنا توسيسو والله هذا نحل بان نوباهنين مدحوين نوباهنين عيدا نوباهنين ربي نوفنا وانا قنيا نقونينا مركو البحر لماذا أنبوش قرينينا وحكا لماها horta rabbi ha loo noqdo rabbi markii loo noqdana wax kasta asaga hal weydiisto marka maanta intaasaan jeclaanay la sheer gareeyo wax kale oo maxaa la yiraahdaa qoladaan iska dhaadhacsiisa waxbaan baranay falsafada ee isku dayay inay islaamnimada shaki galiyaan oo ku leeyihiin Soomaalida dadka ugu aqliga badanaana aqli ad ilaahay ku aqoonsan weeyda aqli maahan oo Rajab Dawkins ma la yiraahdaa aqoonyahan professor waa lagu leeyahay ilaahay ma jiro meel la meereysana marka nimayaho annaga caqiido qurux badan aan leenahay dad nadiif aan nahay jidka horaan ku soo noqonayna sideedaa shay aan sameeyayna qof kasta oo qofka walaalka ayaa gaarsii shay baashan oo kula toosto waxaan kale idinku gudaraa dharku caqiidada qofka ma sheego oo maanta duu suud qofka xirtay micnaheedu inuu siyaasi yahay ama aqoon-yahan yahay maaha hadduu qamiis iyo garbisaar maxaa la dhahay cimaamad iyo tusbax weyn oo qaatanay micnaheedu maaha sheekh inuu yahay inuusan hayn marka doonta adoo xiran iyaad qofnimadaada mar waliba wanaajin kartaa marka baasho aqligeena iyo subxaan la yiraahdaa aqoonsiga ha ka guuro dharka yaana noqon dharka ogaal ee aan noqon qofka jaanis inta la siiyo keena qaldanne yaan la dhihin waa qaldantay ku qaldamay inta loo tago hebel markuu ku qaldamay ma uusan ogeyn waxa uu sameeyay inay qalad tahay ka raali noqon oo dibanaha hal la qabto eedaysana yaan la qaban anshaxi hal la dhiso intaas aad igu soo gabagabeeyay waa mahadsantiin